isku mar ayaa 7 qof oo lagu eedeeyay inay internetka u dhacaan lagu xiray dalalka Mareykanka, UK iyo Ireland isla markaana dacwad lagu soo oogay. FBI ayaa sheegtay in 5 ka mid ah raggaasi ay ku lug lahaayeen kooxda la yiraahdo Lulze oo hogaamiyahooda Mansour loo malaynayo inuu noqday qof booliiska sirta siiya. sida ay sheegayaan waraaqa maxkamadeed, Mansour waxa uu ahaa xubin saameyn weyn ku lahaa 3 shirkadood oo internetka u dhaca oo mas'uul ka ahaa weerar lagu qaaday shirkado ganacsi iyo hay'adaha dawladda Mareykanka iyo kuwa kale oo caalamka ka dhacay. iPad cusub oo wata chip casri ah isla markaana leh dhala xardhan iyo retina iyo wireless broadband ayaa shaaca laga qaaday oo la soo saaray. tabletkan cusub waxa la suuq geynayaa toddobaadka soo socda isagoo ku bilaabanaya $600. 63% sanadkii hore tabletka la beec geeyay dunida oo dhan waxa uu ahaa iPad. khubarada qaar ayaa aaminsan in suuqa tabletka sanadka 2017 uu dhaafi doono midka kombiyuutarada. kombiyuutarka Raspberry Pi ee Britishku ay qaabeeyeen oo qiimihiisu yahay 22 gini oo kaliya ayaa ilbriqsigiiba la gadayaa $700. inkastoo aanu qaab qurxoonayn, haddana waxa uu wataa processor, GPU, RAM 256 MB SD card iyo socket internetka laga isticmaalo. noocyada mustaqbalka ee aaladan oo loo qaabeeyay in carruurta lagu baro sida wax loo qoro ayaa la filayaa in la suuq geeyo dabayaaqada sanadkan iyadoo si fiican markaasi loo qaabeeyay. in lagu ordo 18 mayl saacadii ama 29 kilomitir saacadii uma muuqato wax cajiib ah marka la eego robotka la yiraahdo Cheetah. robotkan Cheetah waxa uu awooday inuu dhigo rikool cusub oo ku orodka dhulka isagoo isticmaalaya lugo. dadka soo saarayna waxa ay sheegayaan in ay rajaynayaan in robotkan uu yeelan karo qaabab kala duwan oo applicationada militariga ah ayna iman doonto maalin uu 130 kilomitir saacadii ordo.